khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa waxa ay ka dhalatay weerarkii kooxda Daacish ay ku qaadeen xaflad caruus ah oo ka dhacaysay maalintii Sabtiga ahayd magaalada caasimadda ee dalkaasi Afghanistan ee Kabul, waxaana ku geeriyootay ku dhowaad 80 qofood sida ay sheegeen saraakiisha ka tirsan dowladda Afghanistan. weerarkaasi oo lagu qaaday howlka ay ka socotay xafladda arooska ayaa waxaa fuliyey qof ismiidaamiyey. mas-uuliyiinta ayaa maalintii Sabtida ahayd waxa ay sheegeen in dhimashada ay ahayd 63 ruux, halka dhaawacan uu gaarayay 180 qofood oo dhaawaca. dhimashada waxa ay hadda gaartay 80 qof, waxaa sida AFP u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ninka lagu magacaabo Nasrat Rahimi. qaar ka mid ah dadkii sida xun ugu dhaawacmay isbitaalka loo qaaday ayaa geeriyooday ayuu sii raaciyey. weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee magaalada Kabul ka dhaca tan iyo bishii January sanadkii 2018, markaasi oo gaari nuuca gurmadka degdega ah uu ku qarxay waddo ay dad badani ku sugan yihiin, taa oo dhimashadeedu xilligaasi ahayd 103 ruux. weerarka maalintii Sabtida ahayd ee xafladdaasi lagu qaaday ayaa waxaa shaaca laga qaaday in aysan ka dambaynin kooxaha Shiicaha lagu magacaabo, balse waxaa sheegtay kooxda Daacish ee Afghanistan.